اللهم يا ربنا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا قاعد سو دواada meel walba adduunka ka joogtiin waa walaashiina oo maanta dib inuu isku soo laabanay maasha Allah. waxaan rabaa maanta inaan isbitaalka ka baxo oo gurigeyga aan u laabto adoo Ilaahay idmo saa ku aragteen teetalka. hadda waxaan ku jiraa musqusha haddaan soo kacay marka haduu Ilaahay idmo waxaan rabaa inaan isdiyaariyo. maanta waxaan rabaa inaan gurigeyga ku laabto haduu Ilaahay idmo. hadda waa hurdo ka soo kacay saa u jeedinba wacdaysanaya wajiga bararka igu qaata ma fahanteen. qofka haduu hadda dhalo waxaan ku dhahay barar ilaa muddo uu saarnaanaya kadib uu iska dagaaya bararka kiskisoo u dagaaya waa ogtihiin. mar walba babyga xaga ka fiirinaya qolka keligeyga ku jiro naaga igula jireen way iga baxeen. waxaan ku dhahay mid leela keena way baxeen mid kale leela keena waa baxee goorma adigana baxdaa aan ku hamin jiray. alxamdulillah maanta baadaan ani caruurteyda dib aan u madownay. waxaan ku dhahay waa khayr ma fahanteen. muraayada rabaa inaan isku aadiyo kadibna waxaan sameynayaa shower sameynayaa. kursigaas waxa looga tirgalay qofka markaas dhalay 3 beri 2 beri sidoo kale dhalan inuu ku fariisto haduu istaagi waayo iyo naagaha la qalay ayaa ku fariistaan. kadib markaan shower soo sameeyay waa u jeedin baby Maxamed waxa la dhahay baby Maxamed loo lahaa yaa baby Maxamed ma jire baby Maahir aan dhahe wiilkiina Maahir u bixi ma fahanteen maasha Allah. codka aan saaray meesha waan ku ooynooyaa meesha aan fadhiyaa babygan sugaya waxay dhaheen check abaan marsineynaa maanta maadaama oo gurigeena u laabanaysin oo iska ogtihiin 3 beri qofkii dhalan oo caafimaadkiisa okay yahay gurigiisu iskaga laabanaya maasha Allah. oo waxaan gabdhayga ii keenay khayr Allah siiyo shalay isoo booqday ma fahanteen. maantana waxay ii tahay aniga isbitaalka 13 cisho maya 14 cisho ii tahay maanta intaan ku jiro. laakiin insha Allah maanta gurigeyga aan ku laabanaya haduu Ilaahay idmo banaankaan fadhiyaa saa u jeedinba. babyga waxay rabaan inay ka qaadaan ishagada dhiigig lugihiisa u duduleeninayaan aan ku dhahay cunugiiba wax kale ka dhigeen wax hadda dhashtay oo dhowr cudur laga baaray ma aragteen. waa kaas way sii wadaan hadda waxay leeyihiin check up ugu dambeeyay la soo marsiinaa maadaama xaafada ku laabanaysiin. okay aan dhahay waa kuwaas gabdhaha iyo dhakhtarka way isla shaqeynayaan ma fahanteen. kuwan waa practical dhakhtaradana waa taas cunugay ku dugan tahay ayagana wix sida qaabka cunuga iyo wax lagu sameeynaa la tusaaya. kadib aniga meesha u fadhiyaa saa u jeedinba waxii ilmo la soo dhalay meeshaan la keenaa ma fahanteen. geedkaas ay ku shidayaan kulul kadib cunugii dharkii laga bixinayaa dhiiga ay ka qaadayaan. xidid ma laha laakiin lugaha iyo gacmaha ay ka duduleelanayaan subxaanallah. cunugii oo dhan wada sharoota iyaga dhigeen ma fahanteen. meeshaan fadhiyaa aniga qolka oo ilmaha waay dhalooyinka ilmaha la geliyay waay oo hadii naqaska ku xirmaan iyo hadii kaleba waa soo laabtay. cunugii markay check up ka soo marsiiyeen wajigayaan la yaabanahay bararkiisa suuligan ku soo laabtay wajigayga bararkiisa arka aan leeyahay wallahi ma fahanteen. alxamdulillah marba hadiiba aan ka baxoona meeshaan oo waxaan ku dhahay gurigeyga aan u laabanayo waa alxamdulillah alaabteeda aan aruursanaya. markaan waxaan ku dhahay wixii inta ii yaalay oo dhan ayaan aruurinaya. kaal iska arag wajiga soo dhaweey waa la yaabanahay waji muufa naqday anoo kale laakiin insha Allah waxaan way iga baabaayaan marba hadii caafimaad la qabo oo cimriga Ilaahay noo deestay waa alxamdulillah. Ilaahay nabad gurigeyga igu soo celiyay ayaa mahad iskale. waa kaas babyga meeshaasaan ka fiirinooyaa qolkaana waxaan ku dhahay yaa 14 cisho aan jiifay aan ku foolinaya aan ku dhahay marba hadii isbitaalka aan ka baxaya wallahi salaatu shukr inaan tukado waa ma fahanteen. marba anoo caafimaad qaba daanba ka baxooy alxamdulillah
waxaan ku dhahay ii sheeg adiga waa wax ilaahay lagu xamdiyo lagu shukriyo waa caafimaadka muhiim waa gabdho waxaa la ogaadaa qofka markuu isbitaal soo galay iyo markuu banaanka joogo wallahi different u dhaxayso laakiin anaga hadii anaga bini aadan nahay caafimaadka ma dareeno markii isbitaal soo gashida la dareema alxamdulillah laakiin marka caafimaad haysatid waa inaa ilaahay ku xamdisaa ku shukrisaa oo mar walba waxaan ku dhahay wixii ilaahay raali ka ah la inaad sameysid ma ahan inkastoo naf iyo shaydaanba meel kasta ay taagan tahay laakiin allah dadka TikTok ka caatamaayo waqtigooda maalayacaniga ka dhuminayo markii la soo qabto markaasaa waaga ku barinaa ma fahanteen marka alxamdulillah ilaa caafimaadka noo ziyaadiyo cimriga ilaa noo barakeeyo isbitaalkan aa ujeediinaan ku dhahay hore gadaalaan ku socon jiray wiininka ka batay kadib dharkeyga aruursanayaa beeb maxamed horta u labisaya ee beeb maahir aan dhahe maxamedkeyga yara waxaan leeyahay mar walbaba maxamed maahir aan u bixiyay magaciisa iska barta wiilkiina dharkii xataa waxaan ku dhahay muddaan la joogo asaga dhan uu iga kadkadoodmay feeran uma haay ma fahanteen saas la ugu gelinayaa dhib malaan insha Allah haddana ii sheeg adiga waa u tirtirayaa maadaama xudunta weli ka go-in yaa kadib dharkiisa dhakab ugu sii waa kaasee baybigiina habaryarta u tihiin abtigaa u tihiin maasha Allah abtiyaal habaryaal waa niisoo salaamoyaadhe intaanay hadiina siiyaan ma fahanteen waxaanay noo soo qaadeen buugaas iyo buugagta baybiga iyo buugeyga iyo waxaan ku dhahay bahashaan wuxuu ka jiro ma ogi tanna hadii waa ay dhaheen gashanka ay dhaheen reer Germany ma fahanteen bacdaanay noo keeneen thank you anda intaan baadaan iga helay wax kale ma iga rabiyay hal mar le aan bax aan taaganay ma fahanteen kadib bacdii wixii aan saaraya alaabteeda soo aruursanaya waxaan ku dhahay maadaama buugagta baybiga wax dhan la ii keenay anigana jack abli soo marsi waa fasaxanta igu dheen quraacadeeda arka talo Allahu akbar wixii quraac ahaan la igu keenay arka hal xabo tamaate iyo hal xabo roodi iyo biyo kulul iyo caleentaas iyo yogurtkaas intaas quraacadaada ee ma fahanteen alxamdulillah marbada gurigeyga anoo nabada tago yaa isbitaal ma fiicno ilaahay qofkii ku jirona ha ka soo aruuriyo anay 14 ish waxaan sheegay waa qaba marka soo roonaad ayaan iga sheekeynaa qaabkii ii xareeyay qaabka 14 isho u joogay iyo waxyaalaha la ii foolinayay iyo wax sababay iyo waxas dhan insha Allah waxaan ku dhahay marka xogaa soo kabsado 10 isho ii baxo ma aragtay markaas insha Allah aan soo fariisanaya had maanta le 4 isniin ayaan dhalay 3 4 khamiis 4 birleen badalanahay ma fahanteen weli bararkii wixii ma iga kala degin marka insha Allah ana baan iga soo waramaayo gabdho wadu ilaahay mahad gurigeyga codka ku saarooya fiidiyahan alxamdulillah waa nabad imaaday qolkaana waxaan ku dhahay 4 cisho ku rafanay waa kaas buursadeeda dharka soo aruursaday waxay gabdhayga ii keeneen waa kaasa maasha Allah yaa wax ii dhiman malahan aniga xataa waa soo diyaariyay khalaas way markaan quraacdaas yarta iska cunaya ilaa marka aabeena nooga imaado ilaa qadada xataa waan gaarayaa ma fahanteen waayo asaan sugayaa asagana caruurtii inuu ii sheeg adiga iskuulka ka soo wado kuwa qaarna kindergarten ka soo wado markaas loo ii imaana intaas waa iska sugayay waa kaas waa is diyaariyay quraacada iska cunaya hadda marka ma fahanteen halka xabrootiga igama daraay waa gaajaysanay aan taaganahay waxaa yeelay hal xabrooti anaga Soomaalidiina baaqul buuxsado aan barana moogtay meel intay hal xabrooti kaale arag maasha Allah roodigeyga iska cunooya sa ujeedin biya xabadkeyga ma iga daraay aan taaganahay ilaa guriga aan ka tago waa ogtahay qofka duu umul yahay daqiiqo u gaajismaa ma fahanteen inkastoo tookadan cayil inaa iska ilaaliyo aan rabo qof buuran la iimayn jir marka xaamalada laakiin qof buuran ma ihi hadda barar yar igu jiro laakiin insha Allah waxaan iska dagayaan halkii xabrootiga iska cunooya wiilkeyga waa uu lebistay waa u diyaarsaday yaa marka waxaan ku dhahay qolkaana hal mar aan ka baxo aan taaganahay fiidiyaan insha Allah waxaan soo gaaraa isla maantadan khamiista kadib waxay u keeneen haddana bacdaanay u keeneen waxaa ku jiro hal xabo masaaso
iyo buugaag kala ku jirta asagana buugagtaana wixii lagu sameynaayo markaan guriga taga laan fiirfiiri ma fahanteen waa wax meel markaa tagtid dukaan wax ka gadanaysid oo ii sheeg adiga oo ankabuud waa macnaha oo discount lagu sameynayo wax saas oo kale waa gaalada wax la xayeysiin ama ogido saana isku diyaari boorsadeeda meeshaan dhigtay boorsadii weyneed waa soo baxnay saa u jeedin ma sha Allah waa soo qaday laakiin yaa qadadan insha Allah gadaalan iga tusi doonaa fiidiya hadda leen ba arkayba laakiin waa soo qaday markaan soo qaday soo baxay waxaan u maleynayay inaan fiidiya hore aan soo geliyay laakiin gadaal aan iga tusi doonaa insha Allah xaajiga ii imaaday gaarigu ii keenay isbitaalka iyo gurigeena ma kala foga marka saas la ajligeeda bas la iska raacayna ma fahanteen meesha baska u sii socnaa hadda isbitaalkii maca salaam aan leeyahay maca salaam 14 cishaa igu heyseen qadadii waa taas markaan soo qadayaa soo bax markaan leeyahay fiidiya waxa la rabay qadada inaan soo hore soo mariyaa la rabay gadaala marsiiyay hadda la u jeedaa laakiin dib ma lahan markaan soo qaday ayaa xaajiga ii imaaday saa u jeedeenba waa soo baxnay ma fahanteen ma sha Allah qadadooda maba iska xumeen laakiin quraacadooda iyo cashadooda la cuni karo laakiin qadadooda ma sha Allah waa ku heystay baaniga khudaar iyo waxay ku keenayaan baradho iyo mararka qaar khudaar kale iyo kaala iska arag way moos iyo yaa inaan Soomaali ah waxaan dhahay lagu ogaana mooskeygan ku dhay waa ku dhex shubtay ma fahanteen qadadooda intaas waaye intaan hadaa cuntid ma sha Allah waa cunto nafaqo leh ma fahanteen laakiin quraacdooda iyo waxaan ku dhahay cashadooda hal xab rooti iyo hal xab ismaris leh way kadib waa kanaahe baska agtiisa u sii soconay dhac baskii uu noo imaaday waa soo fuulnay saa u jeedinba xaafadaaba markaan ku dhownahay ma fahanteen 4 stop kadib xaafadeedaan tagay alxamdulillah waana nabad imaaday sida quruxda badan igu soo duceysan jazaakallah khayr gabdhaha cusub oo igu soo biirmaan alxamdulillah gabdhow ilaaha mahad u sugnaatay oo dib caruurtayda iyo gurigeyga igu soo celiyay ilaaha mahad iskale gurigan jooga gurigan igala hadlaaya alxamdulillah qolkayga jiifkan jooga baybigana waa kaasa uu hurdaaya ma fahanteen marka waa mahadsantiin jazaakallah khayr fiidiyan halaas ku egyahay waa kaas insha Allah wixii hadda ka dambeeyo waa isla joognaa gabdhaha quruxda badan sida quruxda badan ay ugu soo duceyseen markasta mahad celintiina kama gaari ma soo koobi karaan dhahe hadalka xataa waan shigshigahay ayaa la ii qaban farxad darteeda oo dib caruurteedii aniga u midoonay alxamdulillah marka fiidiyan halaas ku egyahay bye bye